saldanadihii waqooyiga soomaaliya iyo heshiisyadii gumaystayaasha. saldanadihii shawa, maqsuumi dynasty, ifaad, cadal iyo mara oo ahaa saldanado lahaa raaciyo kale isira ase yeeshee ku bahoobay diinta islaamka, waxaa u dambeysay qarnigii 16 iyo 17. waxaase gobollada waayaha loo yaqaan togdheer, sanaag iyo sool ka abuurmay saldanado iyaguna muslin ah, raaciyadooduse ahayd qolooyin soomaaliyeed. saldanadahaasi waxay lahaayeen hanaan dowladeed, waxaana u talinaya mar walba isi sare oo loogu yeeray garaadha. saldanadahaasi waxay soodintoodu fidsanayd ilaa burco oo ah dhanka galbeedka iyo ilaa laasqoley. qolooyinka warsangeli iyo dhulbahante ee muddo dheer ka talinayay aagagaa soomaaliyeed waxay abuureen talisyo madax bannaan oo qaab dowladeed leh. waxay bilaabmeen saldanadahaasi qarnigii 13. waxaan tusaale u soo qaadanaynaa garaad dhiidhiin oo talinayay 1298 ilaa 1311 iyo garaad xabalgale oo talinayay 1311 ilaa 1328 dhalashada ciise kadib. gaasishoore isaguna wuxuu talinayay horaantii qarnigii 16. ilaa xilligan la joogana waxaa weli sii jira filkii garaadeednimo ee hababkaas. intuusan isticmaalka ingiriiska soo caga dhigan geega soomaaliyeed, waxaa ganacsiga xeebaha soomaaliya awood sare ku lahaa talisyadii garaadada warsangeliga, halka tan dhulbahante awood sare ku lahayd dhulalka gudaha ah. saldanadahaasi waxay ku dhisaayeen abtisiyo, waxayse door muuqda ku yeesheen heebaalka taariikhda soomaaliya. tusaale ahaan waxaa jiray caaqil dhahar oo ka taliyay koonfurta sanaag iyo qaybo gobolkii bari ka tirsanaa. wuu kula diriray xabashida goobta galgala oo uu ka xaaqay kooxa masiixiya. galgala waa rug taariikhi ah, waana meesha ay ka soo jeedaan xaduur iyo bis oo labaduba ahaa magacyo eebbaha weyn loo yaqaan oo waagii fircoonada la isticmaali jiray ama la adeegsan jiray. waxaa la tuusan yahay in safar badeedkii caanka ahaa ee xilliyadii boqor xadsashuud ay galgala u ahayd bartii kulanka ee reer bowto iyo safaradaas. weli waxaa ka muuqda raadad diini ah oo ay ka tageen dadyowgii hore iyo kuwii dambaba. 1886 baa heshiis dhex maray ingiriiska iyo saldanadii warsangeliga. wuxuuna qirayay qodobka 5 ee heshiiskaasi in sharci ahaan ay saldanadu tahay mid xor ah, hase yeeshee gacsaar la leh dowladdii ingiriiska. garaad maxamuud cali shire oo tirinaya 1897 ilaa 1960 wuxuu ingiriiska kula baaramay in dhulku ka talinayay ahaado miduusan gumaystuhu soo caga dhigin, waana hirgashay ilaa la xiray oo la masaafuriyey. dhanka kale waxaa taladii kala wareegay garaadadii dhulbaantaha sayid maxamed cabdulla xasan iyo ururkiisii daraawiishta oo ka sameeyey dhulalkaas dowladda keedu yahay dariiqada saalixiya. daraawiishtu waxay bilaabeen loolan hubaysan oo ba-an oo ay la galeen gumaystayaashii amxaarada iyo ingiriiska 1899 markii ugu horreysay ee qolo soomaaliyeed ee gobollada waqooyi soomaaliya iyo ingiriiska heshiis dhex maro wuxuu dhacay 1827 wuxuuna dhex maray qolada habar awal iyo ingiriiska, wuxuuna ku dhisnaa
ganacsi iyo nabadgelyeyn. saddexdii bishii sagaalaad 1840 ayaa sayid maxamed baar oo ahaa xaakimkii saylac iyo captain morseby oo ahaa ingiriis kala socday shirkadihii bariga hindiga kala saxiixdeen heshiis asna ku qotomay nabadgelyo iyo ganacsi. waxaa xigay heshiiskii saaxiibtinimo iyo nabadgelyo oo asna dhex maray qolada habar awal iyo shirkadii bariga hindiga oo dhacay 1885. waxaa xigay heshiiskii ingiriisku la galay qolooyinka soomaaliyeed oo isdaba joog ahaa. heshiisyo ingiriisku la galay qolooyin soomaaliyeed oo isdaba joog ahaa. habar awal oo dhacay 1888 1884 gadabuursay oo dhacay 1884 habartar jeclo oo dhacay 1885 habeen garxashiis oo dhacay 1885 qolada ciise oo dhacay 1885. xilliyadan ingiriisku la galayay xilliyadan ingiriisku la galayay qolooyinka soomaaliya heshiiska lama gelin wax heshiisa qolada dhulbaahante. kan ugu dhow ee lala galo dhulbaahante wuxuu dhacay 1905 waana kii sayid maxamed lala galay. heshiiskaas oo muddo yar kadib burburay. intii ka horreysay dhammaadkii dagaalkii lagu hoobtay ee daraawiishta iyo ingiriiska dagaalada qolada dhulbaahante ma ahayn meelo ay boqortooyadii ingiriisku haybad ku leedahay. markiise la jabiyey daraawiishta oo horeynaysay isticmaalka 21 sano waxaa dhab noqotay xoog ku qabsashada dhulalkii dhulbaahantaha. wuxuuna markaas ingiriisku siiyey qaybtii waqooyiga soomaaliya ee uu joogay magaca Somali Britishland and Occupied Territories oo ah dhulka soomaaliyeed ee ingiriiska iyo dhulalkii la qabsaday. sidaas darteed tan iyo waagii ingiriisku ku soo faalalay geyiga soomaaliya waxaa deegaanada dhulbahanta lahaayeen sifooyin gaara. si kastaba ha ahaatee waxaa ingiriisku ku dhawaaqay inuu dhowre u yahay dhulkii soomaaliyeed ee uula baxay British Somaliland 1887. markii hore ee ingiriisku ku soo faalalay dhulalka soomaaliyeed wuxuu la socday ujeedooyin ganacsi iyo nabadgelyo si uu ugu helo maraakiibtiisii ku gooshaysay barinka baabulmandab ama ammaan ama nabadgelyo. wuxuuse markii dambe u dhaleeyey xeebaha waqooyiga soomaaliya si uu ugu helo xeryihii ciidan ee cadan hilib. sidaas darteed danta ugu weyn ee uu waqooyiga soomaaliya ka lahaa ingiriisku waxay ahayd inuu hilib u helo saldhigyadiisii adag ku yiilay. wuxuuna barihii waqooyiga soomaaliya uu ku sugnaa uu ula baxay kawaankii cadmeed ee hilibka Adanis Butcher Shop. wixii ka horreeyey 1897 waa in yar ka hor intuusan sayid maxamed bilaabin ololihiisii weynaa waxaa lala talinahayay dhulalkii soomaaliyeed ee ingiriiska magaalada cadan taasoo muujinaysa dalla-aantiisa dhulalkaas. wuxuu ingiriisku la galay dhaqdhaqaaqii gurnamadiidka ahaa ee soomaaliyeed ee dagaaladii ugu dheeraa uguna baaxad weynaa qaaradda africa. markuu ku jabin waayey dagaaladii dhulkana wuxuu adeegsaday diyaaradihiisii RAF the Royal Air Force DH-9 oo si arxan darro ah ugu xasuuqay shacabkii soomaaliyeed iyo xoolahoodiiba. 3 dalooloo halbaa lubay shacabkii soomaaliyeed ee aagagaas. markuu jabiyey dhaqdhaqaaqii daawish wuxuu ku soo rogay
dhulalkii reerka dhulbahante ee uu qabsaday Kumbaya Territories sharciga degdegta hagaardaamooyinkii u geystay Ingiriiska waxaa ugu weyneyd weeraaradii u sameeyey dagaaladii Soomaaliyeed oo haddana uu hadiyado u siiyey dalal kale arrintaas oo horseeday colaado aan kala go-ayn oo uu galo shacabka Soomaaliyeed waxay intii siyaasadihii Ingiriiska maanta ta Soomaaliya la ildiran tahay dhibkii u geystay Ingiriisku shacabka Soomaaliyeed isagaaba qatay oo ku sheegay nasiib darro wuxuu ku sheegay Louis Fitzgerald buuggiisii The Betrayal of the Somalis in waqti wasiirkii mustacmaladaha uu ka yidhi aqalka guurtida ee London bishii labaad 1955 siyaaro badan marka la eego waxa ayaan darro ah heshiiskan la galay 1897 xabashida waxaana noogu wacnaa aqoon la-aanta iyada dhulalka Soomaaliyeed waxa ayaan darro ah inaan maanta marag u nahay siyaasadihii iyo magacyadii Ingiriisku ku soo rogay dhulalkii Soomaaliyeed oo laga wado geeya Soomaaliya oo markaan uu xambaarsan yahay dhaqdhaqaaq Soomaaliyeed kaas oo mabda ka dhigtay magaaladii iyo magacyadii gumaystihii duleeyey dadka Soomaaliyeed waxaana ayaan darro ah in dhaqdhaqaaqaasi sidii Ingiriiska oo kale u doonayo inuu ku suduleeyo shacabka Soomaaliyeed xayndaabyo dhalateed ah oo dhiilo mooyaane aan wax dheef ah u lahayn qaranka Soomaaliyeed weerarada maanta ee laascaanood kama gadisna weeraradii ciidankii Soomaaliyeed ee la oran jiray ilaalo oo gaashaan iyo garabka u ahaa Ingiriiska oo weeraray 1920 taleex soo uma eka in cajaladii taariikhda dib loo soo rogay